xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kulan yeeshay ayaa dib waxay u dhigeen codaynta wax ka bedelka xeer hoosaadka baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Cali Xuseen Koronto. kulankani xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeesheen xaruntooda golaha shacabka oo ay soo xaadireen 166 mudane ayaa waxa shir gudoominayay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay soo jeediyeen inaan loo codeyn karin xeer hoosaadka baarlamaanka ee wax ka bedelka lagu sameeyay maadaama 139 mudane ay ku soo hareen fadhiga baarlamaanka. Professor Jawaari oo shir gudoominayay kulanka ayaa cod u qaaday in dib loo dhigo ansixinta xeer hoosaadka ayaa waxa ay xildhibaanada golaha shacabka isku raaceen in dib loo dhigo codeynta xeer hoosaadka wax ka bedelka lagu sameeyay ee baarlamaanka Soomaaliya. waxa ka aamusay waxa diiday 37 waxa ogolaatay 107 dib loo dhigo saadaraadii arrinta dib loo dhigo. walaalayaal waxaan ka codsanayaa aad inaan isxilqaano warxilkeena aan isxilqaano aan markaa anagoo magaalada joogna haddana aan meeshaan imaanin duruufan aan haysan ceeb weyn min fadlakum berito haddii aan la yidhaahdo هل يماذا سجالك يطلق دحضر هل يماذا سيطلق بلون هوشين ودميسا ما له الله كان فنيا سجال الصبح نمو إلا كم يطلق الوحدة شغل بالله هذا ما يصير حتى حدير يسا قوة مكان فكين تذكر مكان الدوانة مكان وأن أنت جوتك تقول أنت مكان هذا يكرم شكرا لكم وحريه والناس Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kulan yeeshay ayaa dib waxay u dhigeen codaynta wax ka bedelka xeer hoosaadka baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Cali Xuseen Koronto. kulankani xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeesheen xaruntooda golaha shacabka oo ay soo xaadireen 166 mudane ayaa waxa shir gudoominayay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay soo jeediyeen inaan loo codeyn karin xeer hoosaadka baarlamaanka ee wax ka bedelka lagu sameeyay maadaama 139 mudane ay ku soo hareen fadhiga baarlamaanka. Professor Jawaari oo shir gudoominayay kulanka ayaa cod u qaaday in dib loo dhigo ansixinta xeer hoosaadka ayaa waxa ay xildhibaanada golaha shacabka isku raaceen in dib loo dhigo codeynta xeer hoosaadka wax ka bedelka lagu sameeyay ee baarlamaanka Soomaaliya. waxa ka aamusay waxa diiday 37 waxa